guddigan oo ay dawladda deegaanka Soomaalida u xil saartay qabanqaabada aaska qaran ee loo sameyn doono Allaha u naxariistay Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Singub oo kulankoodii labaad yeeshay ayaa ka warbixiyay halka ay marayaan hawlaha aaska qaran oo ay sheegeen inay u socoto sidii loo baahnaa. waa markii labaad ay isu timaado xubno ka mid ah guddigii aaska qaran aanu sameynay abwaankeeni weynaa Allah raxmeeyaha Maxamuud Cabdullaahi Singub horay waanagi mar isku nimid haddana waa mar labaad waxaan isku nimid hadda waxa weeye inaan dabagal ku sameeyno hawlaha nagi joogtada halka ay noo marayaan waxaanu noo maraysaa hawshu boqolkiiba 75 si fiican bay nagu socotaa sidii aan ugu talagalay qorshihii aan ugu talagalay bay ku socdaan waxa noo dhimanna waxa weeyaan waa soo gaartaankii iyo dadkii martidaha kulay noo imanayay guud ahaan waan u diyaar garownay dhammaan wixii aan ugu talagalay ama haday tahay martigelintii ama hadii ay tahay xagga qabrigii hawlihiisa ku saabsanaa dhammaantood meel fiican baanu ka maraynaa ilaa ya hadda waxaan isleenahay hadda way ka dhiman yihiin oo hadda aan tabihinana ma ay jirto aan ka ahayn dadka martida noo iman doonto iyo marxuumka oo soo gaar doona insha Allah hadii Ilaahay raado bari aroortii marka guud ahaan hawshu si fiican bay nagu socotaa illa ilaahu wa inna ilayhi raaji'un kullu nafs da'iqatul maut ilaahu naxariisto abwaankii weynaa aabaheen halgamaagi aan islaahay dadka maanta jooga ee Soomaalida ah uu taariikh dheeraa ama uu taariikh fiicnaa sababtoo ah inkastoo hadda ay tahay waqtigiisa maartay uu galay oo saacadiisii ugu dambeysay hooyigii uu ku dhashay ay geeridiisu ku dhamaatay Soomaali maanta meel kasto ay joogto way ooyeysa waa ninka kaliya maartay Soomaali oo dhan mid walba uu leeyahay halka hal la keeno hal lagu aso marka Ilaahay uu naxariisto janno waha taariikh uu lahaa magac uu lahaa dadkii soo halgamay taariikhda kule ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaba shakhsiga uu magac dheer buu ahaa Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Singub inaguna maanta Charles oo helay inaan asturo si fiican u aasno asagootino u ducayno Ilaahay u barino marka ummadeena deegaanka ku nool meel kasto ay joogtaba waxa loo baahan yahay maartay abwaankaas magaca iyo sharafta iyo qadarinta lahaa Soomaali oo dhan ku weynaa halgamaaga ahaa waxaan xasuustaa maalintii ugu dambeysay aniga bartan fooq dheer waayo Soomaali ka soo qaxnay xilligii shirkii yaa laga koox ah yaa halka kula kulanay hal ereyga weydiinay jawaab yar buu la siiyay jawaabtu la siiyay waxay ahayd Singub ayar marka Soomaaliya joogtayba barnaamijyo badan iyo riwaayado badan iyo taariikh badan baa lahayd maxaa haduu aamusan tahay wuxuu lagu jawaabay riwaayado ku dhex jirtaan daawada xilliga anagu ma fahmin laakiin hadda fahnay waxaa sodon kii sano wixii ummadda Soomaaliyeed ay soo martay deegaanka ku nool iyo markaas soo ka hadlay riwaayad kasta iyo gabay kasta iyo muallifkaas wax kasta uu sheegana dadka Soomaaliyeed si kale u turjumi jireen laakiin asaga wax walba wuxuu ku qotomay deegaanka maanta aan ku noolahay wuxuu cirsayeer ku wariyay inay cawdaran bogsootay dadku waxay u qaateen maartay Soomaaliya laakiin in halkan la isugu imaan doono way oo jijjiga la isugu imaan doono oo meesha laga qaxay ee laga cararay dib loogu soo noqon doono waxayna guddigu sheegeen in aaska abwaanka ay ka soo qayb gali doonaan marti ka kala socota dhammaan geyga ay Soomaalidu degto sida Soomaaliya, Jamhuuriyadda Djibouti, Somaliland, Jubbaland iyo Puntland bulshada Soomaaliyeed ehelada abwaanka qurba joog abwaano iyo dadka caanka ah ee taageera murtida abwaanka maanta waxa aan soo dhameystiray diyaar garowgii aaska qaran ee loo sameynayo abwaanka barina sida uu qorshuhu yahay waxaan rajaynaynaa maadaama ay maalin Jimcaha tahay in Addis Ababa laga soo qaado oo la keeno magaalada Jigjiga oo aasku ka dhici doona magaalada Jigjiga guddi ayaan u xisaaray Addis Ababa joogta oo maartay dadkii ehelka ahaa ee joogay Addis Ababa iyo martiyaha kale ee kala duwan ee ka imanaya dunida daafaheeda in Addis Ababa ay ku qaabilaan oo ay halka ka soo saaraan diyaaradda guddigaasi waxaan hadda rajaynaynaa sida aan qorshaha ku hayno ama cid aan ma taqaana hubinay inay jiraan ma taqaana wafdi ay Soomaaliya dawladda Soomaaliya ay soo dirtay sida aan hadda qorshaha ku hayno waxa kale oo aan rajaynaynaa oo aan maartay guddigaasi sida ay warbixinta noogu keeneen
hadda noo soo sheegay in ay jiraan iyaduna xubno ay soo wakiilatay dowladda Djibouti oo aan maaragtay ku wargelinay dadkii ehelada ahaa ee maaragtay iyaguna Addis Ababa la joogay marxuunka intaas oo dhan waxa aan rajaynaynaa berri in maaragtay ay ka soo bixi doonaan aaga Addis Ababa waxa inta dheer in maanta ay soo galayaan xubno badan oo abwaano iyo dawladda iyo isugu jira mataqaanaa shakhsiyaad kale oo caan ah oo iyaguna ka soo gali doona xaggan Wajaale waxa aan iyagana maaragtay sidoo kale ka soo qayb gali doona aaska oo hadda iyaguna soo wargeliyay dowlad goboleedka Jubbaland oo iyaguna maaragtay guddi soo dirsaday waxa inta dheer oo iyaguna ka soo qayb gali doona oo maaragtay iyaguna soo wargeliyay dowlad goboleedka Puntland oo iyaguna maaragtay madaxweyne ku-xigeenkii noo sheegay waxa inta garab socda shakhsiyaad aad fara badan oo abwaano ah waxa garab socda shakhsiyaad fara badan oo caan ah waxa garab socda shakhsiyaad kale oo iyaguna maaragtay isxilqaamay oo abwaanka ama maaragtay nolol la soo wadaagay ama aqoon ay isu leeyihiin ama ehelba ay wadaagaan marka guud ahaan annaga xaggayga dowlad ahaan iyo deegaan ahaan iyo shacab ahaanba waxa aanu aad u soo dhaweyn doonaa oo aanu sida ugu quruxda badan oo tacsi qaran aanu dhigaynaa abwaanka wasiirka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha deegaanka Soomaalida ahna gudoomiye ku-xigeenka guddigan ayaa intaas ku daray in ay dawladda Soomaaliya doonaysay in meydka Abwaan Singub lagu aaso dalka Soomaaliya hase ahaatee ay qoyskiisu dalbadeen in meydka marxuunka lagu aaso deegaanka Soomaalida oo halkii uu ku dhashay abwaanku waxaan leenahay ilaahay baa qadaray naf kastana maaragtay meydku way dhadhamin doontaa in halkii maanta lagu aaso Soomaaliya waan wada xidhiidhnay dawladda Soomaaliya waxna waa codsanayna halka maaragtay geeno oo lagu maamuso oo maaragtay Soomaaliya maaragtay lagu aaso annagu dawlad ahaan deegaanka wax dhibaato ah oo aan arrinta u arkaynay ma jirto laakiin maanta waxa iska leh eheladii uu ka geeriyooday marxuunku kadib markii ay isu yimaadeen dadkii familiga ahaa oo sababo kala duwan ay soo bandhigeen waxa aan maaragtay dawladda Soomaaliya iyo cidii maaragtay aan marka xiriirkan la soo yeelanaysayba ay ku qanceen markii sababihii ay soo bandhigeen dadkii ehelada ahaa ee qaraabadii uu ka geeriyooday marxuunku kadib taas ayaa ka damantay in Jigjiga lagu aaso waana sharaf bay anaga noo tahay waxay noo tahay maaragtay qadarin iyo weynaan in maaragtay Soomaaliya Djibouti dhammaan deegaankii Soomaalida in la isku haysto oo leeyahay maaragtay anaga aasayna waxay muujinaysaa mugga inta uu leeyahay hal abuurkiisu waxay muujinaysaa muggiisa taariikheed waxay muujinaysaa in aanu ahayn qof maaragtay meel ku kooban ama qabiil ku kooban ee arrintu arrin qadiyadeed ahayd haddii aad maaragtay dib u fiirsato falsafadaha uu ka hadlayay haddii aad dib u fiirsato riwaayadaha uu matalayay riwaayad majaajilo oo ma ahayn had iyo jeer halgan sida tusaale ahaan oo kale sayid maxamed cabdulla xasan marka uu hadlayo ama uu gobay jeedinayo ama uu cid la hadlayo ay jihaadku ugu ahaa maaragtay ubuc inta kale dhan uu ku qurxiyaa uu ku soo meermeeraystaa laakiin sayidka waxaad ogaanaysaa ubucda shayga uu ka hadlayaa bu'da shaygu inuu ahaa jihaad abwaankana bu'da shayga ama ubucda uu ka hadlaya had iyo jeer waxaad qadiyadda deegaankani ahayd shay kasta uu kaftan u leeyahay shay kasta uu u leeyahay maaragtay riwaayad ahaan shay kasta uu u dhigay maaragtay jacayl ama kalgacayl ama reer ahaan ubucda hal shay oo arrintaas bu'a oo qadiyadda deegaankan ka hadlaysa ayuu ku soo diri jiray الله نحرسته أبوان محمود عبد الله عيسى سنكب وحكوك يريد مقالة أديس أبابي عاصمة الدلكة مع المدة بريا يلا وضع يميت كابوان كلاقصو دتشي مقالة تكتيكا سي مقالة تكتيكا أبوان كلاقصو مياس قرن سهر سيمن SRT في تكتيكا